Safar sheeko Somali beri baa nin safarahi reer u soo hoyday wuxuu ninku u sheegay reerka uu martida u ahaa inuu u socdo meel aad u fog wuxuu reerkii u keenay ninkii safarka ahaa gogol uu ku seexdo sidii caadada ahayd martisoor ayaa loo diyaariyey oo markii ay xoolihii soo xeroodeen ayuu reerkii u qaleen neef shilis inta ay si fiican u kariyeen ayaa loo keenay hilibkii oo dhan iyo caano badan ninkii cuntadii loo keenay oo dhan wuu dhameeyey oo waxba kamuu reebin ninkii guriga lahaa wuxuu weydiiyey ninkii safarka ahaa ujeedada safarkiisa markaas ayuu yidhi waxaan tegayaa dakhtar oo caloosha ayaa layga hayaa cuntaduna way iga xidhan tahay ninkii guriga lahaa intuu yaabay ayuu yidhi ma adiga ayaa cuntadu kaa xidhan tahay markaasuu yidhi haa markaa wuxuu yidhi waxaan kaa codsanayaa inaanad isoo marin marka dakhtarku cuntada kuu soo furo ninkii aad ayuu ula yaabay ninka neef cunay hadhow marka la soo daweeyo waxa uu cuni doono ninkii martida loo ahaa wuxuu yidhi malaha 10 neef ayuu cuni doonaa marka uu soo noqdo ha isku dayin inaad kelidii noole noqoto oo aad wax walba adigu qaadato isku day sidii aad dadka kale wax uga siin lahayd